lixdan eedeysane ee maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda 27aad ay maanta u fariisatay dacwad ciqaabeedyo kala duwan oo loo heystay ayaa 5 ka mid ah waxay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada qalabka sida halka qofka lixaadna uu ahaa shacab hubeysan. 4 ka mid ah eedeysanayaashaasi ayaa loo heystay dhac moobil shacab ay lahaayeen iyo dhaawac ay u geysteen qof dumar ah, halka labada eedeysane ee kalena loo haystay dil iyo dhaawac ay u geysteen arday dugsiyada sare sanadkan ka baxay ee ka banaanbaxayay ku celiska imtixaanaadkii wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee Beledweyne ka dhacayay. Dhibanayaashii dhaawaca iyo dhaca ay u geysteen eedeysanayaashaasi iyo qaar ka mid ah ehelada eedeysanayaasha maanta maxkamadda la hor keenay ayaa goobjoog ka ahaa madasha dooda maxkamadda maanta ay ka dhacday. ujeeddo eedlid ku ah eedeysanayaal maxamed cabdi maxamed 2 cismaan maxamed maxamed 3 jadiid maxamed mahad sayid maxamed 4 dable xoog yuusuf Abuukar Makaraan. xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda 27aad ayaa soo bandhigay eedeymaha loo haysto eedeysanayaashaasi 4 ah ee ku eedeysan dhaca iyo dhaawaca qofka dumarka ah loo geystay. mudane gudoomiye codsigaygu wuxuu yahay maadaama eedeysanayaashan ay yihiin eedeysanayaashii qirtay inay dembigan galeen gabadhana xabadda ay ku dhufteen iskuna inkireen dembigana uu cad yahay moobeelada ay dhaceen qorigana xafiiska xeer ilaalinta xafiiska garsoorka ku soo wareejin codsiga aan codsanayno waxay tahay qodobka aan ku soo eedeynay oo ah qodobka meesha ku qoran ciqaabta uu leeyahay kaliya inay helaan. qareenadii u doodaya 4 eedeysane oo dhankooda hadlay ayaa iyana yiri waxaan ku qanacsanahay mar waliba sida ay doonto u socoto waana ku kalsoonahay raallina kama nihin in mataqaanay marnaba qof muwaadin lagu xadgudbo. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda 27aad Dame Maxamed Cabdulle Aadan ayaa ku dhawaaqay in kiiska uu xiran yahay maxkamaddana ay dhawaan xukun ridi doonto. dhageysiga eedii xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyay eedeysanayaasha kala ah 1 dable xoog yuusuf Abuukar Makaraan 2 jadiid cismaan maxamed maxamed 3 jadiid maxamed cabdi maxamed 4 jadiid mahdi sayid maxamed oo ku xusneed qodobada kala ah 440 iyo 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. garsoorka halkaas ayuu ku soo gabagabeeyay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta. kiiska labaad oo ahaa mid doodiisu saacado badan ay qaadatay ayaa loo haystay eedeysanayaal ku eedeysnaa dil iyo dhaawac ay u geysteen ardaydii dugsiyada sare sanadkan ka baxayay ee ka banaanbaxayay ku celiska imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee Beledweyne ay ku qaadaysay. dhageysi iyo dood dheer kadib garsoorka maxkamadda waxa uu sheegay in dhageysiga dooda mar kale loo fariisan doono xeer ilaalinta maxkamadda ayaana laga dalbaday inay keento marqaatiyaal iyo cadeymo dhameystiran. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.